kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waxaynu ku bilaabaynaa Yemen. Shalay galab waxaynu ka sheekeynaynay Dooxa, maantana waxaynu ka sheekeynaynaa Sanca, daraadna waxaynu ka hadlaynay Lubnaan, Suuriya. intaasoo dowladood ayay Israa'iil nagta ku haysaa, Falastiin iyo Gazana oo sii dheertahay. markaas waxa la isleeyahay war carabtu goormay hurdada ka kacayaan, maalin walba mid aan nagta lagu hayaa. haddaba maanta weerar ayay qaadeen Israa'iiliyiintii, waxay weerareen magaalada Sanca, ayay dhowr qaraxyo ka geysteen. haddaba warbixino kala duwan ayaa laga qoray sheekadaas. haddaan idin la wadaago wararkii ugu dambeeyay kanaalka Israa'iiliyiinta iyo wararka kale ee ay qoreen warbaahinta cibriga, waxa ugu dambeeyay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil waxa uu sheegay waxaynu duqeynay magaalada Sanca iyo goobo kale oo dalka Yemen ku yaala. wasiirka difaaca Israa'iil wuxuu sheegay ninkii Israa'iil Katz inay markaa duqeeyeen magaalada Sanca iyo goobo kale oo Yemen ah, waxaana uu sheegay goobaha ay bartilmaameedsadeen inay ku jiraan xarumo military inay ku jiraan. haddaba wasiirka gaashaandhigga waxa uu sidoo kale sheegay inay markaa beegsadeen waxa uu ku tilmaamay kuwa argagixisada ah ee jooga halkaas. kanaalka Israa'iiliyiinta ayaa isaguna waxa uu sheegay ciidamada cirka ee Israa'iil inay duqeeyeen xarunta afhayeenka kooxda Xuuthiyiinta Yaxya Sariic uu ku leeyahay magaalada Sanca. kanaalka 14 ee Israa'iiliyiinta wuxuu leeyahay ciidamadeena cirka ayaa duqeeyay goobtii uu ka soo warrami jiray ninka la yiraahdo Yaxya Sariic, afhayeenka Xuuthiyiinta. warbixintu way sii socotay. arrimaha dagaalka ku saabsan ee maanta la qoray waxaa ka mid ah weeraro dhinaca cirka ah ayaa lagu qaaday magaalada Sanca. warbaahinta taageerta Ansaarullah, kooxda Xuuthiyiinta Yemen, waxay sheegeen in afhayeenka kooxdaasi uu sheegay in ciidamada difaaca cirka ay ka hortageen dhowr diyaaradood oo weerar ku soo qaadayay wadanka Yemen, waxaana uu sheegay inay fashiliyeen isku daygii weeraradii ay markaa ku soo qaadayeen halkaas. dhanka kale waxaa sidoo kale la sheegayaa ninka abaanduulaha ciidanka Israa'iil ninkii Zamir inuu sheegay inay la socon doonaan dhaqdhaqaaqyada guud ahaan gobolka Bariga Dhexe. waxa uu sheegay inay sii xoojin doonaan miisaanka awoodeed ee Bariga Dhexe Israa'iil. waxaynu weerari doonaa Xamaas iyo kuwa kaleba, waynu daba taagnaan doonaa ilaa meel kasta ay ku joogaan wixii Israa'iil dhibaya u leeyahay. marka waa arkaysaa waa weerarnay, annagaa weerarnay, weliba waxaan weerarnay lihiin maqar ama xaruntii afhayeenka Xuutiga Yaxya Sariic. kanaalka kale ee 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin isaguna wuxuu leeyahay waa markii ugu horeysay goob gantaalaha laga soo tuuro ayaanu weerarnay oo ciidanku ay noo sheegeen. qaar waxay leeyihiin wasaaradda maaliyadda la weeraray. Xuutigu wuxuu leeyahay difaacaadkeena hawada way iska celiyeen nimankiisay rabay, waxba ugu mehergelin, diyaaradihii waa cayrinay. marka wararkaas oo dhan socda alcumuum marka isku soo duub. shalay waxaynu ka hadlaynay Dooxa, maanta waxaynu ka hadlaynaa Sanca, dhul carbeed waaye. daraad waxaynu ka hadlaynay Beirut, waxaynu ka hadlaynay Dimashq, meel la dhaafay male. saasaa loogu galgashay. carabtii kale way iska fiirsanayaan. Israa'iilna abaanduuleeda hadda muxuu leeyahay nadina akhrinay awoodeena Bariga Dhexe saasaan u ballaarinaynaa, cid wax naga qaban karta male. kuwana dhibaya Xamaas iyo kuwa kaleba meel alla meeshii joogaan ku soo salaamayna, nagta uga saarayna. marka hawshaas halkaas ay horta maree xal halkaas u maraa maanta. wixii warar ka soo kordha weerarkan Xuutiga haday dad waaweyn uga dhinteen iyo hadii kale iyo wixii kale soo baxa barnaamijyada dambe idin kula wadaagi doona, maadaama warku hadda uu cusub yahay. qaybaha kale ee barnaamijka ayaynu u gudbaynaa. nin senator ah oo xildhibaan ah wadanka Mareykanka oo la yiraahdo Sanders oo dhowr jeer xilka madaxweynenimada isku soo sharaxay ayaa la yaabay ficilada Israa'iil. warbixintu waxay ka qoreen warbaahinta ayaanu markaa idin la wadaagayaa.
senatarka la yiraahdo Sanders wuxuu sheegay xukuumadda Netanyahu ee xag jirka ah inay xeyndaabkii caalamka loogu talagalay dowladnimo ay ka baxday waxaana uu sheegay inay noqotay markaa xukuumad adduunka oo dhan ka soo horjeesatay senatarka madaxa banaan ee la yiraahdo Bernie Sanders ayaa sheegay Israa'iil inay markaa iyadoo caadeysatay inay gaajeysiiso caruurta haddana waxay wadaa inay gubto qaanuunkii caalamiga ahaa kadib markii ay weerartay Qatar u fiirsada waxaa leeyahay marka meeshaas wax ka jirta nimankanu xeyndaabkii adduunka iyo shuruucdii u dhigtay waa ka baxay waxay rabaan iska sameeyaan marka sheeko halkaas mareen ilaa hadda wali wax waro oo dhanka ka soo kordhay xootigana ma jiraan ilaa hadda way qadar xayisiisha kadib waxaan u gudbaynaa madaxweynaha Imaaraadka Mohammed bin Zayed maanta booqasho ku tagay Dooxa carabtan oo ka harimayaan hal mar haday meel kugu soo ogaadaan ma ka harayaan waxa leen ninkan sababtu u tagay waa sababtaas dooda socota Dooxa muxuu ka samaynayaa muxuu ugu cararay meesha haddaba marka waan galaynaa hawshaas xayisiin kadib mutaashahay barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas Daaru Taqwa waxa kugu baray quraanka hab casri online ah maadooyinka ka baran karto waxa kamid ah quraanka kariimka igada luqada carabiga iyo culumta shariicada sidoo kale way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda dugsiga markaas Daaru Taqwa sharikada Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafada Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo laba dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena qaybihii ugu dambeeyay waa barnaamijkii galabnimo maantana waa Arbaco haddaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa madaxweynaha Imaaraadka Mohammed bin Zayed ayaa maanta booqasho wuxuu ku tagay magaalada Dooxa dalka Qatar halka wuxuu kula kulmay Tamiim amiirka wuxuu uga tacsiyay dhibaatadii ku dhacday weerarkii dalkooda lagu soo qaaday xadgudubka Israa'iil ay ku sameysay sidoo kale wuxuu sheegay inuu barbar taagan yahay oo ka xun yahay wixii dhacay intaas waa inta media lagu leeyahay intaas waa inta media loogu talagalay laakiin dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin arinku intaa waa ka weyn weerarkii lagu dili rabay madaxda Xamaas oo dadkoo dhan ay ka wada shaqeeyeen oo xataa loo malaynayo inay ku jiraan nimankan Imaaraadka ayaa fashilmay weerarka marka waxa fashiliyay oo aad loogu celcelinayaa sirdoonka Turkiga oo ogaaday inay markaa Israa'iil duqeynayso raggaas meesha ku shiray isla markii sirdoonka Turkiga waxay la soo hadleen qadarna waxay la hadashay meesha dadkii markii laga saaray inta dhineedo meesha ka soo baxaysa lagu helay halkaas lagu qaramsaday 6 qof ee dhalinyarada meesha lagu dilay laakiin raggii waaweynaa markii horeba qadar go' ka tir meesha ay ka saaray فهميسا marka waxa leeyahay ninkan wuxuu u tagay tacsiideen inuu Netanyahu iyo kooxdiisa Yahuuda uu yiraahdo nimanka waa qaldan ay ku yiraahdeen raalli noqon nimanka ilkoodii hay'isaan ahayd kan ahayd marka ninkaas odaynimo loogu diray in nimanka qadariinta madaxa loo salaaxo waa tii Trumpna uu yiri animaba ogeyn kula Netanyahu isaga iska sameystay laakiin hadda kadib ma dhacayso qatar waa saaxiibkeena aynu gobolka ku leenahay ma cidaan siisan karno male sida ciyaalkii oo kale ayaa la isku hadlayaa meesha marka waa arki doonaa wixii warar soo kordha arintan Yaman la weerarayna wararkeeda isha ku hayn doonaa barnaamijyada dambe ayaan idinkula soo gudbin doonaa la gareeyo shirkadii barnaamijka asxaabay meel kastoo joogtaan inta aan markale kulmayno nabadgelyo